waxaan ku soo wada shaqaynay wanaag niyad sami iyo isfahan intaba waan ku soo wada shaqaynay waxaan rajayn doonaa idinkuna intasaa wada shaqaysaan waa dardaarankaydii waxaan joogaa oo tegi doonaa haddii ilaahay nafkayidaayo meelaan iga dheeray meeshaasina waa idiin jooga waa qadar haddaad igu timaadaan iyo haddaad halkan imaadaba waa shaqada seegida iyo xilibka loo soconaya ma iloobi doono xusuustiina ma iloobi doono wejiyadiina ma iloobi doono magacdiina dhammaan waan xasuusan doonaa ma noqon doonto inaan tawar iska dhoofo oo ninooga jaalaydakuy marna haka yaagaataas dhammaan xusuuska ahaa yaa lagu leeyihi waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar kale dhammaan xubnaha jaamiyadda gaar ahaan dhalinyartii soo abaalushay ka soo shaqaysay xafladdan quruxda badan leh iyagoo ah xubintii safaaradda kaain mar kastaba aad joogsan jirteen dhalinyarta iyo hablaha aad arkayseen waxay dhammaanba adeeg u yihiin aragtina u yihiin ummadda soomaaliyeed magaceenna iyo sharafteenna ayay kor u qaadeen cidi uguma tegin maanaan tilmaamin waxna umanaan sheegin xafladdaasi iyagaa soo abaabulay waad mahadsantihiin aad iyo aad baan iga mahad celinaynaa sida fiican eed u soo abaabusheen eed u samaysteen ugu dambayn waxaan ilaahay weli waan joogaa inagama tegin gaar iyo gaargaarna waan isku arki doonaa si guudna waan isku arki doonaa ha u maleeya caawa inaan diyaaradda fuulayo muddo ayaan sii joogi doonaa inta waqtiga ka xagga haddii ilaahay iimo si guud iyo sigaaraba loo dardaarmi doonaa waxaan soo dhaweynayaa danjiraheena suu hadda laga yidhaahdo kelmadiisii ku saabsanayd munaasabadda ku saabsan ciidda caawanuba dabaaldegayno maalintii xorriyadda iyo iswatarka labada gobol mudane danjire cabdillaahi maxamed owaa ku soo dhaweeyey السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد السلام كسوق القياش شرفت له وهريو تريها كوال السفارة مستوعبين iyo shaqaalaha kala duwan ee safaaradda jamhuuriyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dalka Kuwait kasoo qaybgalayaasha faraha badan ee ka socda jaaliyadda oo ay ku jiraan culimaadudiinka aqoon-yahanka dhalinyarada dumar iyo caruurba waan idin salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaynu iskugu nimi waa munaasabad aynu ku xusayno sanad guuladii 59aad ee ka soo wareegtay xorriyaddii iyo midowgii jamhuuriyadda Soomaaliyeed taariikhda waa laga soo hadlay
laakiin waa joogteen waxayse maanta kaga duwan tahay sanadadii waa marka koowaad ee 60 jir bay ku dhawaatay oo sanad uga dhimay mar labaadka waxay maraysaa oo ay ku beegantay waqti xasaasi ah oo dowladda uu isbeddel weyn ka socdo taa isbeddelkaas oo hogaaminayo madaxweynaheena maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa waxaa kale ku soo beegantay xilli doodo adag oo ku saabsan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliyeedna ay dood kulmi ka socoto waxay ku soo beegantay xilli khayraadkii badda uu muran ka taagan yahay oo ay maxkamadaha caalamka ay taalo waxaasoo dhammi waxa ay ina tusaysaa inaynu baraarugno inaynu iskaashanno iyo inaynu wacyigeenna kor u qaadno aniga shakhsiyan munaasabadda aynu maanta xusayno ee 59 sannadood ay ka soo wareegtay haddaynu dib isku qiimeyno asal Soomaali ahaan waxaan isleeyahay 3 generation baa loo kala qaybin karaa amba 3 jiil jiilkii koowaad wuxuu ahaa jiilkii laga sheekeeyey xornimada keenay u dagaalamay dalka mideeyey ee calanka sameeyey heesaha u qaaday ee Soomaali meel ay joogto himilada geliyey jiilka waxaa ku xigay jiil labaad jiilka labaadi waxay keeneen dagaal sokeeye waxay sinacsiiyeen dadkii waxay keeneen ceebtii ay nimanka ka hadlayeen dhalinyaradu ay sheegaysay qaraxa isnaca iyo dhibaatada leh jiilka saddexaad oo u badan jiilka yaryar ee imika halka jooga waa jiilka mustaqbalka uu gacantooda imika galay ee looga baahan yahay marinkii ay mareen jiilkii iyaga ku horreeyey inay ka baydhaan waddada oy ku daydaan jiilkii koowaad oy dadka mideeyaan ummadda isku keenaan oo ay Soomaali siday ahaan jirtay ku soo celiyaan ilaahay waxaan ka baryaa in dhalinyarada halkan inala joogta uu ka dhigo dhalinyarada aqoonta leh halkan joogtay gudaha iyo dibadba inuu inooga dhigo jiil barakaysan oo keena saxidda loo baahan yahay dalkeena intaa haddaan ka gudbo waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo khatimo xafladdan mahadnaqdaas ee qaranimada iyo midnimada ay 59aad waxaa kaloo aan jecelahay inaan dowladana mahadnaq u jeediyo shacabkeeda oo runtii martigeliyey jaaliyadda martigeliyey safaaradda si qiimadana u taageeray dib u soo qabashada dalkeena ilaa imika ayna garab taagan oo wax inala qabanaya waxaan kaloo ku mahad celinayaa si gaar ah majlisul wadani wadaqaafa oo ah ururka ina siiyey goobtan in xafladda ku qabsanayno quruxda badan leh iyagana waxaan leenahay shukran jasiira waxaan kaloo oon si gaara ku mahad celinayaa dhalinyarada reer Kuwait sida gaarkaa ila shaqeeyey intii aanay imi oo sida aad sheegay marka 6 bilood ku dhow guud ahaan jaaliyaddu si wanaagsan bay la shaqaysay laakiin runtii waxa aniga aad ii soo jeediyay dhalinyarada aqoonyahanka oo aniga aad moodo inay si gaara ila shaqeeyeen dhalinyarada xafladda soo abaabulay ayaa qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah dhalinyaro si gaara ila shaqeeyey oo aanu iska kaashanay inaanu dhibaatooyinka faraha badan ee jaaliyadda haysta aanu cilmi baadhis ku samayno oo aanu qoraal u bedelno intii aan jaaliyadda wareysanayay waxaa ii soo baxday 4 shay inaan inta badan ka dhawaajinayso inoo jaaliyadda u tahay oo ay ka mid tahay masalada caafimaadka la ismariyo faraha la iska qaado tacliinta oo aad moodo ardayda dugsiga sare ka soo baxaysa iyo ardayda jaamacadda gelaysa oo gaab weyn u dhexeeyo oo arday badan ay guryaha fadhiyaan iyo masalada afraad oo ahayd jaaliyaddu xarun ay ku kulanto oo midaysa dhalinyarada waxaan iska kaashanay 4 masalo in baxsi laga soo sameeyo qoraal laga diyaariyo si ay u sahlanaato in cid ay khusayso madaxda Soomaaliyeed iyo madaxda kale martida u nahay waddanka Kuwait la wadaago waxaan jeclaan lahaa markaa inaan u yeedho magacyada aan halkan ka dhawaajin si ay la soo dhaweysaan
aynu si wada jira ugu mahad celino dhalinyarada rag iyo dumar kale aqoon-yahanka ah. waxaan ku bilaabayaa tiimka warbixinada qoraalka ah iyo ka shaqeeya jaaliyadda khusaysa inoo soo diyaariyey markaa siduu idii sheegay Abiib waa garab baa loo bedelay inagama foga tana iyo tusaale waa inala joogaa inkastoo ay isticmaalada ugu diyaariyeen oo warbixino dhamaystiran oo qoraal oo cid walba anfici doontaa ay sameeyeen. runtiina taasi runtii waxay gelisay farxad iyo awood fara badan oo aan ku shaqeynayo. tiim kale oo jaaliyadda ka mid oo dhalinyaro ah oo xafladan quruxda badan ay noo soo diyaarisay ayaan iyagana jecel lahaa inaan halkan soo taagaan intooda badan kale waa joogtaa. Shariif Cabdirasaaq Cabdallah, Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdilbaari, Cabdilbaari Axmed Yuusuf, Faysal Cabdirasaaq Cabdallah, Amal Maxamuud Maxamed, Faadima Cabdallah, Shariif Cabdirasaaq Cabdallah. haddii idinka joogto qofna wuu istaagi karaan. dhalinyaradaasi runtii iyagoo aan lacagna la siinaynin magacyadoodana aan meel laga sheegnaynin ayay waqti fara badan iyo furaan fara badan isbedelada xoogga leh gobolka ka socda iyo inay daruuri noqoto qarnimada in dib loo xoojiyo oo tamar labaad la geliyo ayaa xilli dambe safaaraddu ay ku aansatay inay xafladda qabato. hawshii maantana way naga aragnay xafladda quruxda badan ay noo diyaariyeen. aad baa mahadsan. guud ahaan jaaliyaddu waa mahadsantihiin. sida Abiib uu sheegay adigoo ninkii si wanaagsan aniga ii soo dhaweeyey intii aan idila joogay wax badanna runtii aan ka bartay maadaama khabiiru yahay safaaraddana oo muddo badan ka shaqaynayay. Manta 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 ومال وين manta 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 مدحي بناني manta 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 ومال وين manta 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 مدحي بناني manta 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 مدحي بناني manta 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 ومال وين manta 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 مدحي بناني manta 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 ملكي دلكينا manta 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 ومال وين manta 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 manta